muqdisho waxay u dabaaldegaysaa toban guuradii ka soo wareegatay dib u xureynteeda wuxuu ahaa halgan muddo sanadaha qaatay oo caasimadda ummadda looga saaray mahadhooyin u diiday nabadii iyo xasiloonidii nolosha dadka waana maleeshiyada al-shabaab 6 Agoosto 2011 waxay ahayd mid ka mid ah maalmihii taariikhiga ahaa ee Soomaaliya markii ciidankii dawladda ku meel gaarka ahayd ee uu hogaaminayay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyo ciidamada midowga Afrika ee AMISOM oo isgarabsanaya ay si buuxda ula wareegeen magaalada Muqdisho kadib howlgalo aan har iyo habeensi lahayn oo si taxadir ah loogu qaaday goobihii argagixisadu ay kaga sugnaayeen magaalada Muqdisho howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa taageero ciidan tababar iyo farsamo la garab taagnaa ciidanka qaranka halgankii xoreynta xamar howlgalka dib u xoreynta Muqdisho oo ah qidad dagaal oo aad loo qorsheeyay waxa hogaaminayay madaxweynihii dawladda ku meel gaarka ahayd ee xilligaasi oo dhiirigelin iyo lafdhabarna u ahaa ciidankii geesiyaasha ah ee maleeshiyada al-shabaab ku qasbay inay habeen madow ay ka guureeyaan boolihii ay gabaadka ay ka dhigteen ee caasimadda Muqdisho waxa farxad weyn ah maanta in asxeexo qorshihii amniga iyo xasilinta dalka ama xasilinta qaranka oo ah qorshe lafdhabar waa dowladnimada muddadaana laga soo shaqeynaya inta aan dul istaagin halka Muqdisho ay joogto waxaan dib idin xasuusinayaa dadaalkii loo galay xoreynteedii la dayacay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo lagu doortay dalka Djibouti kadib wada hadalkii waliba heshiiskii dawladdii ku meel gaarka ah iyo isbahaysigii dib u xoreynta ee hogaaminayay waxa caasimadda yimid xilli maleeshiyada al-shabaab iyo kooxihii la midka ahaa ay haysteen inta badan gobolada dalka iyo caasimadda waxaana kooxahaasi ugu xoogganaa al-shabaab ka soo horjeesteen heshiiskii nabadda ee lagu dhisay dawladdii midnimo qaran dagaal ayay kala hor yimaadeen dawladdii ku meel gaarka waxayna diideen nabad iyo wada hadal xal loogu gaaro waana halkii argagixisada ugu baxday magaca jid iyo jihadiid kaasoo ugu magac daray Allah u naxariistay abaanduulihii ciidankii xoogga dalka ee xilligaasi General Dheg Badan Allah u naxariistay waxaan ka ballan qaadaynaa nafteena iyo jiritaankeena inaan u hurno dalka difaaciisa dawladda difaaceeda iyo diinta difaaceeda guruubooyinka Allahu akbar guruubooyinka jid iyo jihadiidka oo isu soo bahaystayna waxaan rajaynaynaa muddo dhow ummadda Soomaaliyeed inay ka kaaftoomi doonto ayaan rajaynaynaa haddaanu nahay ciidamada qalabka sida war ma ballan qaadna madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu la yimid qorshe military oo lagu dhisayo ciidan qaran oo awood leh la dagaalanka argagixisada si looga saaro caasimadda iyo waliba guud ahaan deegaanada kale oo ay gacanta ay ku hayeen qaranka dumindiisa muddo dheer oo soo socda annaga waxa laga yaabaa inaan ku baraarugnay xilli dambe wuxuuna ka dumay ciidanka haddii aan rabno marka inaan dhisno xagaan ka dhisayna ciidankan ka dhisayna madaxweyne Shariif ayaa si looga miro dhaliyo qorshahaasi dib ugu yeeray khubradii militariga Soomaaliya waxaana uu la yimid siyaasad lagu dhisayo ciidanka laguna kordhinayo tiradooda iyo waliba tayadooda iyadoo lagu jiro xaalad dagaal si xal loogu helo nabadiidka wuxuuna salka u dhigay dhismihii ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxaan u maleynayaa inaad leedihiin nasiib gaar ah ciidanka ugu horeeyay oo la qaabilo inaad naqatiin ciidanka ugu horeeyo yimaada markii hubkii iyo mushaarkii la diyaariyay inaad naqatiin waxay la tahay fursad weyn marka mas'uuliyad gaar ah idin saaran Sheekh Shariif kaliya ma ahayn madaxweyne waqtigiisa ku qaatay xafiiska qaboob ee waxaa lagu xasuustaa geesinimadii hogaaminta howlgalladii dib u xareynta caasimadda dalka iyo waliba dhiirigelintii ciidanka iyo waliba saraakiishii ku jirtay furmaha dagaalka qof waqtigiisa ka hor dhimanayo ma jiro qofna wuxuu ku dhimanaa gurigiisa qofna wuxuu ku dhimanaa asagoo magac iyo muuna ka tegaya aakhirana loo rajaynayo inuu jannada galo waxaad la socotiin dadkaan waxay dhibaateeyeen shacabka Soomaaliyeed waxay been ka sheegeen diinta islaamka aan ognahay ummadda Soomaaliyeed dhammaan inay muslimiinta sidaas darteed ayaa waxa laga maarmaan inaan difaacno dawladnimada
ka saarista al-shabaab caasimadda dalka kadib madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed waxa uu dadaal geliyey xaqiijinta amniga muqdisho wuxuuna kormeer joogto ah ku hayay habeen iyo maalin xarumaha amniga iyo weliba xaafadaha si nabadgelyada kor loogu qaado waxaana taasi ay suuro gelisay in 43 sano kadib gudaha dalka gaar ahaan magaalo madaxda lagu qabto shirki ergooyinka ee lagu ansixiyey dastuurka kumeelgaarka doorashadii baarlamaaniga iyo weliba madaxweynaha Soomaaliya intii u dhaxaysay Agost iyo Sebtembar 2012 shalay waxaan dhahaynay magaalada aan xorayno maanta magaalada waa xorayno caasimadda muqdisho fursad waxay u heshay shirweynuhu halkan ka dhaco dastuurka lagu ansixiyo baarlamaanka lagu xulo madaxda lagu doorto sharafka ka weyn caasimadda aan u keeni karno oo mataqaana xilligan la qaban karaa muxuu yahay xoreyntii muqdisho waxaa kaloo ay suuro gelisay in Soomaaliya ay ka baxdo kumeelgaarnimada dibna aynu u soo noqdaan horumarkii ganacsiga iyo weliba adeegyadii kale ee bulshada 10 sano kadib xoreyntii muqdisho xaalka sidii ma aha ganacsigii ayaa gaabsi ah waxaa jirta cabsi amni oo joogto ah maleeshiyadii al-shabaab ee laga xoreeyey waxa ay baad ay ka qaadan ganacsatada Soomaaliyeed waxaana ka sii daran dhaca burcadda ay geystaan oo joogto noqday si loo adkeeyo nabadda caasimadda loona xoreeyo dalka intiisa kale Soomaaliya oo ku jirta xilli doorasho waxa ay u baahan tahay helidda hogaamiye fahansan dagaalka argagixisada khibrad u leh kuna hagi kara ciribtirka nabadiidka si loo gaaro nabad waarta musharaxiinta u taagan madaxweynaha Soomaaliya waxa ka mid ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah hogaamiye dhiiran leh aragti siyaasadeed amni qaran iyo khibrad uu ku wajahayo nabadiidka maanta waa joognaa bari waxa laga yaabaa inaan taariikh naqano ama shaki wuxuu ku jira inaan taariikh naqayno shaki kuma jiraan inaan taariikh naqayno marka taariikhdii qofku baraarugsana taariikh fiican inuu ka tago ku dadaali kara ilaahayna waafajiyo waxaan naga rabaa marka taariikh fiican inaan ka tagno taariikh fiican inaan ka tagno waxay ku xiran tahay inaan ka duwanaano dadka kale labada aqal ee baarlamaanka la dooran doono waxaa horyaal go'aano Soomaaliya ay ugu dooran doonaan dhabaha nabadda iyo xasiloonida ama waxa ay qatar ay ugu jirtaa dib u dhac mar kale ku yimaada dawladnimadana soo koraysa si la mid ahi dalka Afghanistan oo 20 sano dhisid dawladnimadiisu kadib ay la wareegeen kooxihii la dagaalayay dawladda inkastoo kooxda Taliban ay waqti dheer ay ku qaadatay inay ku baraarugeen wada hadal iyo nabad in lagu gaaro dawladnimada haddana waxaa xusuusin mudana in isbahaysigii dib u xoreynta ee uu hogaaminayay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay xilli hore oo xoogaysigooda la socday fahmeen qaateen wada hadal ugu dambeyntii miradhalkiisu uu noqday in dalka ay isaga baxaan ciidanka Itoobiya lana doorto dawlad midnimo qaran uu madaxweyne ka noqday hogaamiyihii isbahaysiga dib u xoreynta